Maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaalada meesha gaduudan subscribe si sulkadaada ku sii karin farta aayar jag ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada maanqaad media ee caalamka wararkii ugu waaweynaa aqliga wacane karaamo watiyo wakar cilmi loo waqtigu la socda koox hubaysan oo weerar ku bilowday qarax ismiidaamina iyo dagaal toos ku qaaday xarumo dawladda ay ku leedahay magaalada Kaabul ee caasimadda waddanka Afghanistan 9 qofna waxay ku dhinteen weerar lagu qaaday fariisin ciidamada Pakistan ay ku lahaayeen magaalada Lahore ee bariga dalkaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump waxa uu lumiyay in ka badan 10 bilyan oo dollarka Mareykanka 10kii sano ee la soo dhaafay qodobada kalena waxa ku jiray 2 caruur oo ku dhintay gaadiid isku dhacay gobolka Shiga ee dalka Japan maanta oo Arbaca ahayd qaybaha dambana waxaan idin ku soo gudbinaynaa muuqaal ka tarjumaya ragga qaarkood oo dhagar kula dhaqma xaasaskooda marka ay shaqooyinka guriga inay la qabtaan ka codsada aqliga wacane karaamo watiyo wakar cilmi loo waqtigu la socda anigoo xasan xayi cabdulaahi ayaa soo saaray idinlana socodsiinaya mar kale iyo maanqaad iyo caalamka ku soo dhawaada waa 8 bisha shanaad ee May 2019 maanqaad media caalamka ku soo dhawaada mar kale ayaan idin leenahay qodobada aan idin soo dulmarnay ayaan faafahintoodana galeynaa aan ku bilowno fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada dalka Pakistan oo ku taala magaalada Lahore ayaa la soo warinaya in ku dhawaad 9 askari ay ku dhinteen 24 kalena waa ay ku dhaawacmeen waxa halkaas ay ciidamadu ka sameynayeen amniga oo ay xaqiijinayeen munaasabada isku imaatinka xuska daata darbarka la yiraahdo oo dadka suufida ah dalka Pakistan ay isugu soo baxaan gobolka Punjab ayaana la sheegay in ay wax ka dhaceen Arbacadan maanta ahayd wararka waxay sheegayaan in dhaawacyada 24 loola cararay xarumaha caafimaadka si loo dabiibo waxaana sidaas ku waramay Ashfaq Khan oo ah isagu taliye ku xigeenka ciidamada booliiska ee magaalada Lahore maleeshiyada kooxda Taliban ayaa waxa ay sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas ka dhacay dalka Pakistan waxaana ay tilmaameen inay beegsadeen goob dadka isugu yimaadeen oo ciidamadana ilaala ay ka haayeen waxa ka dhaweyd xarun ciidamada ay ku leeyihiin magaalada Lahore sidaan oo kale dabaaldeg 2017 2 sano ka hor ka dhacay magaalada Sahwan gobolka Sindh la yiraahdo isla Pakistan waxa lagu dilay 70 qof dad ka badan maanqaad media ayaa weli nagala socotaan maxkamadda sare ee dalka Venezuela ayaa waxa ay xukun ku riday qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka ee dalkaasi xisbiga mucaaradka waxa hogaamiyay Guaido oo ah hogaamiyihii bilowgii bishan afgambiga isku dayay in ay ku ridaan madaxweyne Nicolas Maduro oo saxaafadda maxkamadda sare ee Venezuela soo saartay talaadii shalay ayaana lagu sheegay in xubnaha sarsare qaarkood xukun la duldhigay dadka la xukumay waxa ka mid ah siyaasiga Henry Ramos Alud oo hore u ahaa madaxweynaha golaha qaranka bishii April ayaa sidaas oo kale codsi ay raacfaan aan kaga qaadanayeen maxkamadda laga hor istaagay kooxda uu hogaamiyay Guaido hogaamiyaha mucaaradka Venezuela 2018 sanadkii la soo dhaafay ayaa mar kale dib loo doortay Nicolas Maduro madaxweynaha waddankaasi iyadoona ay dadka qaar ku sheegayaan doorashadaasi inay ahayd mid daaha gadaashiisa ah oo lagu shubtay
Donald J. Trump madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa qasaaray 10kii sano ee la soo dhaafay lacag $10 bilyan oo dollarka Mareykanka in ka badan sida la sheegayo. Warbixin lagu daabacay warbaahinta caalamka qaarkood ayaana la sheegay lacagta badankeed inay kaga baxday canshuurta dalka Mareykanka isagoo ah ninkan ganacsada weyn kaas oo maalqabeynka madaxweynaha isku bedelay 2016 bishii November la aaminsan yahay in dhaqaale badan uu ka sameeyay dhinaca ganacsiga. hoteello waaweyn ayuu ku leeyahay magaalada Washington iyo magaalada New York waxaana 250 milyan oo dollarka Mareykanka la sheegay intii u dhaxaysay 1991 ilaa 1990 inuu Donald Trump sameeyay. Trump ayaa hadda la aaminsan yahay lacag fara badan inuu ku qarash gareeyo bixinta canshuuraadka 8 ilaa 10kii sano ee u dambeysana majalada Times waxay leedahay waxa uu qasaaray in ka badan $10 bilyan oo dollarka Mareykanka. si cad ugama aysan hadlin aqalka cad arrintan. markana Japan wararka ka imaanaya waddanka Japan ayaa sheegaya in gobolka Shika la yiraahdo Arbacadan maanta ah 2 gaadiid oo isku dhacay 2 ciyaal ay ku dhinteen sida booliiska laga soo xigtay. wakaaladda wararka AFP ayaa sheegtay in shilkan ay ku dhinteen wiil iyo gabar kuwaas oo da'adooda labadaba lagu sheegay 2 jir inay ahaayeen. afhayeen u hadlay booliiska ayaana sidaas warbaahinta qaarkood u sheegay. 13 kalkaaliyaal ah oo dhinaca iskuulaadka ka shaqeeya iyo 3 macallin ayaana sidaas oo kale la aaminsan yahay in gaadiidka ay la socdeen xilliga shilka uu galayay. sargaalka u hadlay booliiska waxa uu sheegay in xaaladda markii dambe ay caadi ku soo laabatay meesha shilka uu ka dhacay. waayahay wararka aan hadda ka helayno magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan waxa ay ku waramayaan in dibli hubaysan ay weerar ku qaadeen xafiisyo ku yaala magaalada Kabul waxaana qarax ismiidaamina la maqlay Arbacadan maanta ahayd barqadii ka hor inta aan rasaas oo laga qaadin dadka meesha joogay. Nusrat Rahimi afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in la beegsaday xarumo caalami ah oo ku yaala waddanka. magaalada Kabul ee buraaleyda ah ayaa sidaan oo kale dhowr mar la beegsaday xarumo dawladeed iyo kuwa aan dawli ahayn waxaana la xaqiijinayaa baa la yiri agagaarka halka la yiraahdo Sharnaw oo Kabul ku dhow in la beegsaday. Firdaws Faramus oo ah afhayeen u hadlay ciidamada booliiska deegaanka waxa uu xaqiijiyay in qasaare uu jiro laakiin tirakoobka aysan ogaan karin. wasaaradda caafimaadka afhayeen u hadlay oo la yiraahdo Waxiidullah Maya ayaa sheegay 9 qof oo dhaawaca in loo qaado cisbitaalka. Qaa'is Samaan goobjooge u waramay qaar ka mid ah telefishinada waxa uu yiri jug xoog leh ayaan maqalnay iyo rasaas daba socota. telefishinka Al Jazeera ayaa daabacay xog kooban oo kaga hadlayo weerarkaas. ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkani. waayahay inta aanan soo gabagabaynin bal markan waxaan idinla wadaagaynaa muuqaalkan oo aan rabo in dadku ay si fiican u dhuuxaan nuxurka ku jira. xilliyada qaarkood waxaa jira rag wanaagsan oo xaasaskooda caawiya xilliyada ay shaqada culus ku jiraan ama ay xanuunsan yihiin. guriga hawshiisa oo la qabtaa waa ay adag tahay marka loo eego ragga inay hawshaasi qabtaan. laakiin waxaa jira rag iyagoo hawshaasi dib ay ku tahay lagu qasbaa oo xaaladda meel sare ay ka gaadhaa isaga iyo weliba sawjadiisa taasoo ugu dambeyntii isagoo aan raalli ka ahayn shaqada qabta. bal ila daawo ninkani xaaskiisa shaqada ku qasabtay iyo sida uu ula dhaqmayo hagardaamada ku jirta.
waa hagaaga guud ahaanna intaasaan ku soo gebagabanaynaa maanqaad iyo caalamka anigoo xasan xayi cabdulaahi ayaa isku soo duway idinlana socodsiinayey inta aan mid la mida isku arki doonno saaxiibayaal daawadayaal sidaas iyo ammaano allah caqliga wacane karaamo watiyo wax kara cilmilo waqtigu la socda maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaaladan meesha guduudan sabskaraab sii suulka haddaada ku sii karin farta aayar jag ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsii si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan